السلام عليكم waxaan rajeynayaa inaad fiicantihiin meel walba iga daawanaysaan maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago erey afar xaraf ka kooban ereygan haddii aad isticmaashid ama aad isbartid oo noloshaada ku soo dartid inaad isticmaashid wuxuu ka dulqaadaa culays wuxuuna ku siiyaa xornimo wuxuu ka kaxeeyaa bacad wuxuuna ku jiidaa oo ku geeyaa had aad ku nasato wuxuu yahay ereygan waa ereyga maya isbar inaad dhahdid ereyga maya una isticmaal meesha ku habboon maxaa yeelay meel aan ku habboonayn haddii aad ereyga maya u isticmaashid kuma nafisaysid xornimo ku siin maayo wuxuuna noqon doonaa mid aad ka shalaydo balse haddii aad u isticmaasho meesha ku habboon wuxuu ku siiyaa xornimo maya inaad dhahdid waxaadan doonayn maya inaad dhahdid waxaan ku naasibin maya inaad dhahdid wax waqtiga kaa luminaya maya inaad dhahdid wax khilaafaya qiyamkaaga iyo mabaadi'daada maya inaad dhahdid wax walba oo dhanka ah hadafkaaga maya inaad dhahdid dadka qaar waxay u arkaan in ay tahay ixtiraam darro mararka qaar way noqon kartaa laakiin meel ku habboon maya haddii aad dhahdid ixtiraam darro ma noqoto dad badanna waxay haa u dhahaan inta badan oo haa u adeegsadaan si ay dadka u qanciyaan oo u raaligeliyaan waxaad ogaataa bini aadan baa tahay wax walba oo aad u samaysid qof bini aadama marnaba raalli ma noqdo aadamuhu marnaba raalli ma noqdo allah raxmaanka ah ee wax walba siiyey dunida dusheeda wax walba oo yaala koonkan u fududeeyay bay qaarkood maaha badan in ka mid yihi ay maaragtay raalli ka noqon weyda marka adoo aadama bini aadan ma qancin karaysid raalli ahaanshaha aadamana ma aha wax la gaari karayo marka inta aad haa dhihi lahayd si aad u qancisid qof bini aadama dadka isku daya inay aadamaha qanciyaan haa hadday dhahaan uma fiicna maya hadday dhahaanna uma fiicna waa dharigii labada dhinac ka gubtay haa hadday dhahaan isla markaa ay dhahaan qofka haa ku dhahaan waxa ma ii samaynaysaa ama waxa ma ii siinaysaa waxa ma ii yeelaysaa haa isla markaa waxay bilaabaan inay ka shalaayaan maya hadday dhahaanna way ka shalaayaan marka waxa weeyaan dharigii labada dhinac ka gubtay midna uma roona haana uma roona mayana uma roona maya hadday dhahaanna waxay isdhahaan qofkii amuu kaa xumaaday maanta dhan bay naftooda canaantaanoo isdhahan waree dhahaa inaad dhahdaa kuu fiicnaan lahayd qofka inuu kaa xumaaday waa laga yaabaa inay bilaabaan inay maaragtay u cudur daartaan qofkii maya inay dhaheen oo maya idii ay horey u dhaheen ay ka cudur daartaan qofkii si ay qofkii aysan u waayin ay maya ku dhaheen maya inaad u isticmaashid meesha ku habboon ee munaasabka ah ood ku dhahdid qof walba marka laga reebo waalidkaaga maxaa yeelay dadka la mid ma aha waalidku mar walba inkastoo iyaga laftirkoodu ay jirta meelaha qaar maya la dhihi karo oo lagu khilaafi karo laakiin ma badna waalidkaaga mar walba waa inaad inta badan waa inaad haa dhahdid ood haada u badisid bini aadamka inaad maya u adeegsatid ood maya ku dhahdid meeshii ku habboon aad u adeegsatid waxay ku ilaalisaa waqtigaaga waqtiguna waa mid ka mid a waxyaabaha ugu qaalisan ee aadamuhu uu haysto wax walboo kuu yimaada iyo qof walboo ku dhaha shaqa ii qaba iyo qof walboo ku dhaha iraac iyo qof walboo wax kaa dalbada haada haddii aad u badiso waxay ka go-an tahay hadhowto waqtigaaga maxaa yeelay aadamuhu tusaale ahaan 60 sano haddaad jirto hadeertan 20 sano oo cimrigaaga ka mid a waxaad ku qaadatay hurdo haddaad tahay qof dadka haada u badiyo oo iska jecel inuu dadka raaligeliyo oo dadka wax walbay dhahaan u sameeyo dadka iska caawiyo oo cid walba 20ka kaleetana ama 10 ka midana waxay u go'day caawimaad dad iyo dad waxaad u sameynaysid iyo dad inaad haa dhahdid iyo inaad isku daydid dad inaad raaligelisid taasoo hadhowta aad dib uga qoomamaysid isbar inaad isticmaasho maya u isticmaasho meesha ku habboon adigoon ka shalaayin ka qoomamaynin maya inaad dhahdid cod dheer aad ku dhahdid kana noqotid naftaada raalli adigoo maya leh asaaska wax walba ama xidhiidh walba oo laba qof ka dhexeeyay waa daacadnimada ama runta qofka markaad ku dhahdid waxaadan qaban karin maya ma yeelayo ma qaban karo ceeb ma aha ixtiraam darro ma aha xumaan ma aha runtaa ka fiican waxaa la yidhaahdaa run iyo ilkaba waa la caddeeyaa marka qofka inaad runta u sheegtaa ka fiican intaad been ku sasabi lahayd eed been ku raaligelin lahayd maya dheh si fudud ma samayn karo maya waxaad samayn kartana haa dheh haa iyo mayana waxaa u dhaxaysa inaad ka fikirta waxaas mararka qaar waxaa jirta wax aadan garanaynin maxaabaad ugu jawaabtaa mise maya haddaad kala dooran weydo haa iyo maya waxaad ku jawaabtaba aad garan weydo dheh waan kasoo fikiraya maxaa yeele haa iyo maya waxaa u dhaxaysa qofku inuu ka fikiro
oo wixii u roon isagu tartiibtiisa isagoo maaragtay cadaadis uusan saarnay tartiibtiisa uu go'aansan karo oo haa u dhihi kara ama maya u dhihi karayo. marka wax walba oo aad ku wareerto aadan haa iyo maya markaba aadan ku jawaabi karaynin dheh waan kasoo fikirayaa waqti qaado jawaabta ugu habboonna sii haa hadday tahay iyo haddii ay maya tahayba. halkan haddaan isla soo gaarnay ood muuqaalkan dhammaysatay waan kaaga mahad celinayaa. muuqaalkan haddii aad ka heshay suulka saar si aad noogu soo birto ood nooga mid noqoto. subscribe taabo wixii fikir iyo raay isweydaarsiga qaybta hoose ee faallada noogu reeb. muuqaalkan la wadaag asxaabtaada iyo cid walba oo aad garanayso oo isleedahay waxbay ka faa'iidayaan si ay u isticmaalaan erayga maya iyo meesha ku habboon ugana faa'iidaan. xayla culays buu kaa dulqaadaa erayga maya isticmaalkiisu wuxuuna ku siiyaa xornimo. markaad maya qof aad ku dhahdid haa wax aadan adigu raalli ka ahayn ama aadan doonaynin isla markaba waxaad bilowdaa inaad ka qoomamaysid. maxaad u tiri haa waxaan ka wadaa maxaad u tiri haa ood maya u dhihi weyday. marka inta aadan waxba ka shalaayin haddii aad kala garan la'dahay maya iyo haa waxaad ku jawaabta aysan kuu kala cadayn waqti iska qaada kasoo fikir. asalaamu calaykum.